عقويرة هذيو رساس قرينك تديدين انكوب قبوب عينيو هلا قلال عديسيدين قفائيو قبور صوتيو قرامه سيدين أول ما سواتان قدبو قريي وياي وكان قلبك ودري قدا ورتسيه انقاشي يوكي حري وردبا قمايد قال لا إلهي كبرن قيضها بحايه قوسوي روي ليبان رنقر وفسنه قديي مغال وحاسه قهار حيقه نجسكي قرطاحها دوش ليتو قريوري قد كان لقو عذابكي هبان قورعوه جدي وقضور عوني وحي قلام بسنعي وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. برنامج والله waxaa idiin soo qaban qaabiyay oo idiin soo diyaariyay oo si wada jir u soo diyaariyay golaha dambaan iyo naadiga weyn aadada weyn garanaysaan Ismaaciil Mele iyo rag kamid ah aqoonyahanka magaalada Sacanood oo runtii barnaamijta taariikhiga aad iyo aad u daneeya dadka Soomaaliyeed waxyaalaha runtii aad iyo aad u muhiimka ah ee ku weyn ee booska weyn ugu jira hase ahaatee maqaamkii la rabay aan dhigin waxaa ka mid ah taariikhdii daraawiisheed barnaamijku ujeedkiisu waxa weeye inaynu wadaagno ka sheekaysanno aynan ilaawin qulubteena uusan ka dhammaanin daraawiishtii iyo ahmiyadda ay u leeyihiin ummadda Soomaaliyeed barnaamijkaasi walaalayaal waa barnaamij muhiim ah oo runtii aad iyo aad u weyn dadka soo koraya iyo jiilka soo koraya ee ummadda u soo koraya Soomaaliyeed dadkiisu ay joogaan waa taariikhay Soomaali wada leedahay oo hanji agaari lahayn Sayyid Maxamed Cabdullaahi sallallahu alayhi wa sallam sida taariikhdiisa laga warayo wuxuu ku dhashay magaalada Buuhoodle meel 7 mayl ka xigta waqooyiga oo Sacmadeeqa la yiraahdo 1856 weeye xilliga uu dhashay laakiin taariikhda qaar baa qorta 1864 balse sidan ay u badan tahay inuu 56 dhashay hooyadii waxaa la oran jiray Caafir Sayd Magan Sayyid Maxamed Cabdullaahi Xasan intii uusan jihaadka dagaalka bilaabin sida cajiradda ka muuqata oo warka uu nagu baxay wuxuu waday dacwad iyo kadaadajin ah in gumaystaha la iska kiciyo markuu arkay inuu diinta islaamka iyo Soomaalinimada iyo dhaqanka iyo dalka uu doonayo uusan ahayn wax khatar 12 sano ayaa arrintaas u qaadatay inuu waxbarid iyo kadaadajin manhajka in la qaato ay ummadda Soomaaliyeed ka dhex qaadatay
sayid maxamed cabdilla xasan wuxuu ahaa nin sheekha oo cilmiga diiniga meel sare ka gaadhay markii ugu horreysay cilmiga wuxuu ka bilaabay diiniga barashadiisa gurigooda ayuu ka bilaabay markii labaad wuxuu ku xujiyey xer fadhihi jirtay nugaal gaar ahaan dooxada casuura iyo yaaheer halkaa xer cilmi fadhihi jirtay oo awowgii sheekh xasan uu aasaasay ayuu cilmiga diiniga kasii bartay 1892 xilli lagu sheegay taariikhdeenna ayaa waddankeena abaari ka dhacday xilligaas isaga iyo niman culimo ah baa tegey oo dhulka barakaysan ee midday maka iyo madiine aaday halkaasna barashada cilmiga diinta ayuu u aaday oo markii saddexaad 1895 wuu ka soo laabtay oo dalka ayuu kusoo laabtay waa markuu kasoo degdegay magaalo xeebeedda berbera halkaas ayuu haddana ingiriiska iyo afkaartiisu ay ku kulmeen oo suweyn sidii uu ku warbixiyey berbera markuu dib ugu laabtay haddana warkiisa aad maqli doontaan khatar culus buu daraawiish ka sheegay sababtoo ah 3 goobood oo layskaga hoyey oo aagga buuhooda hadda ay ku taallo ay ugu dambeysay ilaa kor ka soo bilaabanayay ingiriiskii ciidamadii watay sawaaxiliga hindida iyo soomaalida isugu jiray 48 sarkaal caddaanana way kaga dhinteen saraakiil saasa ma ahayn xidiglayaal 3 xidig lagu siray oo dhamo ah 1723 askari suweyn iyo 6 askari ayaa ka noqday 60kii habeenay dagaalkaasi socday sawirada halkan gadaal looga muuqdana qaar ka mid ah waa ku muujinay hoostay naga aadeen dagaalkaas buu ahaa qaab dhismeedkii daraawiishtu haykalkii dawliga ahayd u dhisneedna isna wuxuu ahaa 3 madaxa koobaad wuxuu ahaa qusuusi waa nimankii tirada daraawiisheed ka guuri jirtay ee qalcadaha fadhihi jiray waa qaabka baarlamaanadu ay u adeegaan markay dowladaha u shaqeynayaan qaab ciidankii kale wuxuu ahaa ilaalo ama gaar hayayaal baa la odhan jiray waa ciidankii qalcadaha ilaalin jiray ee qusuusida dowladuhu way isticmaalaan oo ciidanka madaxtooyada oo loo bixiyo waxaa jirtay ciidan la odhan jiray madax la odhan jiray reer beeday waxay qaabilsanaayeen dhaqaalaha iyo dhaqaalaynta fardaha daraawiishta si ilin waa lagu dagaalgeli jiray ayay qaabilsanaayeen intaas waxay hayeen waa madax dhismeedkii xagga xeerarka iyo kala sarreynta iyo dhaqaalaha xagga ciidamada 7 guuto ayaa uu jaamac Maxamed Ciise Allah naxariistay soo gaarsiiyey sheekh yaale oo qaabilsanayd dagaalada dibadda iyo sirdoonka iyo dhaqaaqa la socodka cadawga oo sheekh yaale oran jiray waa nimankii ugu cusbaa suweyna dagaalka uu kaga waramayaa dagaalkii badnaa ee cagar weyn ay isku haleeleen ciidan la oran jiray baa jiday golaweyn taargooye indho badan miiran leh 2 guuto ayaa jira oo ugu dambeeya oo jaamac xagga taariikhda kaga gaabsay laakiin ku jiray baa ciidankaas darbash iyo rag xun baa la oran jiray baa lii laakiin dagaalo badan may mudanin marka laga tago inta kale qaabkaas waxaa jirtay ciidamada daraawiishtu 21 sano ay dagaalamayeen mushahar may qaadan haddii darwiishku uu dhaqaaqayo sibraarka ayuu caana ku shuban jiray hilib kumbusa ama wax shiilan isna waa sii qaadan jiray 21 sano askari darwiish intuu mushahar qaatay musa fadhiisan waxay naftooda iyo dadaalkooda iyo qadiyadooda u soo sameeyeen inay ummadda Soomaaliyeed xoreeyaan laakiin abaalkoodii dadka Soomaaliyeed waxay ka dhigeen inay noo warwaaran taasina waa taariikhda kulli taariikh hadba jiil baa u kaca jiil badbaadiye iyo jiil kharibo waa isugu jiraan arrintaasi waa arrin aad fiiro ugu leh qofka shucuubta wadaniyeed ay ku jirto nin naftiisii iyo dadaalkiisiiba u geliyay inuu ummadda u dagaalamo subax wala mushaar qaadan taasina waa mid dhulka daraawish ka tirinaysay qararadan dabayada waa idinka arka xaggaas waxay u joogtay ilin dagdala waa meeshii uu ugu tagi jiray sarkaalkii Talyaaniga Sayid Maxamed Bastroosi ninkii la oran jiray ilaa ay jiidalay magaalada beer oo ahayd meeshii Ingiriiska iyo Talyaani u ahayd xadka oo Ingiriisku yiri xagga soo mar daraawish baa laga xisaabtamay oo xagga soo mar aniga ilaa ay shinni loo jijiyo ka sheey safiiqaas soo xiratay wabishabeelle ay mari jirtay sida uu jaamac uu ku soo khariireeyay ilaa ay email bay joogi jirtay kolka xaggan bay ka soo laaban jirtay meeshii la beledweyn qalcadii aamin ee caagdiga haysan jiray baa ku jirtay ilaa iyo meeshii la jasiiba intaas qalcad daraawish markay deganay Ingiriisku 1905 daraawish dawladdu waa aqoonsaday
inuu intaa wixii ka dhaca kala xiriiro maadaama dagaalkii jidba cagar weyn oo soo maray adkaa waxaa jirtay 22 sano maal iyo rag iyo hadaf iyo qadiyad wax walba way ciili ay adag kartiba wax lagu waday sayidku dadka iska dagaalama markaa muu lahayn ujeedu lahaa suugaantiisa oo ahayd khudbadihii uu ku geli jiray ummadda Soomaaliyeed ku heli jiray ayaa waxaa ka mid ah gabaygii aan waxba laga tirin sadarkiisii gabaygii aan wax badan laga qorin oo jaamacana uu yiri wax noo wariyay waanu weynay haddaan waayay calan la nashiro taniyo Nairobi tan ka soo qaadno taleex macnaha geyga Soomaaliyeed sidii Soomaalidii hore ee xorriyadda gadaashiisa u dagaalantay bay u raadsanaysaa shanta Soomaaliyeed ayuu ummadda Soomaaliyeed inay dawladnimada gaadho dumisaana ka baxda ayuu doonayay waxa kale oo jirtay gabaygiisa dadaana 3 sano ku jiray niman yahuudantay baan hadlay iga dariiqaata markuu lahaa dacwadeeda meesha u dhigo fiiro dib u yeesha waxna loogu digayaa ninkii dawladnimo haysta waa dardaaran waa gabaygiisa ugu dambeeyay Soomaaliyeed ku tagay waa xaggii yoolka seen oo wuxuu dagaalamay intaas waa aragtida caawa xagga ku saabsanay inta baydhada hay'adda dhaqaale inta kan dawoona bulshooyinka si loo wadayo daawista cagar iyo isbaarka tawaasan waxaan mawd ku gaardiyay markay darafka taageen gabaygii shuxle haddaan gawsihii jabiyey dagiiga yuusuf jibuutu ku gamas ribayaaye geeshaaska duumarkaasi galow la moodaaye geedtoodoodii haddaan godoorigu loogay iska taajir bay haraan ugu gamumaaye ismaan iyo waxaan gaarayaa gabaanadeesee waa inaynu fahnaa marka koowaad daraawiish iyo dadkii la dagaalamay ee Soomaaliyeed Ingiriiska iyo gaalada kala raacay waxay isku hayeen wuxuu ahaa inaan faahno wax aad muhiim ah daraawiishtu waxay taagnaayeen Ingiriisku wuxuu taagnaa iyo gaaladu aanu idan gumaysanna aan idan gaalayna aan idan gumayna daraawiishtu waxay taagnaayeen na gaalayn maysaan nana gumaysan maysaan nana gumayn maysaan inta un bal isku herto inaan ogaano marka Soomaalidii la kala safatay ninkii daraawiish raacay ee halgamay wuxuu raacay qoladii lahayd ku gumeen ma gumoobeena ma gaaloobeena nalamana gumaysanayo oo gobolkan maanta aan joogno oo gudig u ahaa inta kalena waxay ahayd dhanka kala dadkii istaagay qabiilkay doonaan Soomaaliya ka ahaada Soomaaliya saad maqliseen afar madax baa loo qaybsaday laakiin sida BBC ninka dadka luqadda garanaya ay yiraahdeen wuxuu yiri Soomaalidu isuma aysan dhiibin si sahal ah isuma aysan dhiibin nimanka colonialismka si sahal ah isuma aysan dhiibin way la dagaalameen marka maxaan ku radaa waa ku soo qaatay Sayid Maxamed dagaalkiisii warkaasuna waa war uu diyaariyay maaneejarada British Protectorate sanadkii 8aadka ay diyaariyeen marka waxaan ka hadlaynaa inta badan caawa dagaaladii waxa ka hadlaynaa asaalibtii ودولة إنجليز كأي كل سنة دجالة مجرتي دراوش بين إن شاء الله كشتك دونا مركورة دولك أنت أنا ولدن قالوا ذا إيمان وحيمن شري نمان لون شري كسبولاريس أو دولك قبل أفريقيا جودة هذا حقيقة حقيقة كديارسا نمان كاسوي بدناين وحكم ذا إنك إسبيك لون شري سومالو مدة وتقارن الشيخ عبد الله ريتشارد بيرتون مد لون شري جارلس جولين ويترى بدناين نمان كاسو وحكليه كحسوسا كرناين نبو سوماليا مركز لقى هذا يوم dhulka Soomaaliyeed goboladiisa xeebaha iyo gobolada oo dhan way mareen iyo buuraha iyo banaanada ilaa meesha loo yaqaano waadi nugaal waada gaaladu u taqinay ama hadda anagu nugaal u naqaano nugaal valley loo yaqaano ayaana nimankaas iman waxaana lagu yiri meesha niman dagaal muxaaribiina joogtay isku tagin nin la yiraahdo Isbeeki oo ninkii wabiga Naylka fuhelaya ayaa hal habeen iyo hal maalin in la eg magangaliyo wuxuu ugu joogay dooxada jidin la yiraahdo kadibna uu iskaga soo baxay marka waxay yiraahdaan nabadgelyo hadda ka soo baxday waa ladan tahay dawladda Ingiriiska waxay ahayd dawlad shaq iyo maqrib badan dagaalka daraawiish nugaal waxa uu ku bilowday dagaalkaasu wuxuu ka bilowday meesha Afbakayr loo yaqaano dagaalka caawa waxaan idin sheegayaa waxa amray
dagaalkaasu ma ahayn sida maxaan ku idhahdaa uun dowladda ingiriisku ay faafiso ama soomaalidu isaga haysato dagaal wuxuu ahaa diimeed dagaalkaas ra-iisul wasaarihii dalka ingiriiska waaga haystay wuxuu ahaa nin la yidhaahdo qolkaa wuxuu ahaa la yidhaahdo dagaalka waxaa laga dooday markii sayid maxamed uu ka soo baxay burco ee uu maxaan ku idhahaa markii dambena haradigeed aaday ee ay jigjigo isku haleeleen xabashida kadib buu soo noqday haddana oo halkaana waa tii dhibaata gurdumi kala kulantay markii horena halkana dhibaata kala kulantay bayaadihii qabaliga ahaa iyo duruufihii ka jiray darteedu wadaadku markuu ku soo noqday iyo raggii daraawiishta ahaa nugaal markay ku soo noqdeen fadhi weyn iyo baaraan iyo meelan ay markii hore talis ka dhigteen ayaa dowladda ingiriisku waxay ka dooday in lagu duulo dhulkaa nugaal la yidhaahdo dowladdu waxay ka timid dadkan heshiis nugulama jiraan protectorate ma aha dadka kani sharciguna inooma ogolo dad aan dhulkeedu inala rabin reer yurub waxaynu kula heshiinay qolana inaan la khasbin afrika ilaa lala heshiiyo reerna inaan dhulkooda xoog lagula wareegin qaanuunka noo banaynayaa muxuu yahaa la yidhi ninkaa ra-iisul wasaaraha ah oo la yidhaahdo arthur balfour ninkii caanka ahaa ee dowladda israa'iil state waxa loo yaqaano 1917 kaga dhawaaqay dalka ingiriiska ee yidhi dhulka falastiin la yidhaahdo waxaa laga dhigayaa qaranka israa'iil ee 2500 sano adduunka ilaahay ka joojiyey markay fasaad sameeyeen arthur balfour buu ahaa oo ku adkaystay dhammaan intii kale way ka hortay wuxuu waa amar iyagaan heshiis nugula jirin ninkaa wadaadka ah iyo dadka u wata ee kacdoonka wada la leeyahay waa reer dhulbaanta la yidhaahdo iyo waxa la socda Soomaaliya waa in cagta la soo mariyaa arthur balfour si sharci darro ah oo uu doonaya inuu sii gogol xaaro arrimaha ka dhici doona bariga dhexe ee baytul maqdis ayuu arthur balfour wuxuu amray dagaalkaas isaga ah waana ku taalaa bugaagta ninkii rabana taariikhdiisa waa baari karaa sababaha dagaalka kalifay waxaa ka mid ahaa akhlaaq darrada uu faydiinayay dowladda ingiriisku berbere ay ka bilowday ingiriisku waxa uu berbere qabsaday 1853 ee ma uusan qabsan 1887 heshiis kuma iman waxaa jirtay xilli uu markii hore dadka ku laayay kadib markii doon wax lagaga yeelay 1853 markii dambena wuxuu galay heshiisyo ayuu galay ingiriisku tabii xumaayo dowladda ingiriisku raaci jirtay waxaa ka mid ahaa uu dagaalka daraawishadu raacay waxaa ka mid ahaa mushahaar uu siiyo dad culimo ah iyo dad cuqaal ah nimanka culimada iyo cuqaasha ah marka laaluushka ay qaataan waxay beeli jireen sharafta iyo karaamada ayaa ka dhici jirtay dadkuna ma rumaysan jirin diinta ay sheegayaan odayaashuna waxay aan jireen oday un gaalo shaqaynaya saas daraadeed sayid maxamed wax badan buu wuxuu la yaabay oo weeraray culimada dowladda ingiriiska xukunkeeda ku hoos jirta almiina xataa baadiyahooda aan u cararin waa tuu lahaa maaragtay culimada sidii baaniyaal beledka gaal joogta mar wuxuu lahaa sharcigay hasaayaan iyaan idin hawoosin waxyaalo badan uu ka sheegay waxaa ka mid ah waxyaalaha ingiriisku kula dagaalamayay heshiis aan daacad laga ahayn tusaale 1908 ayaa waxaa lagu heshiiyey in xabadda la joojiyo kadibna 8 xaasoo dumarada daraawiishta iyo dad maatooyina ayaa waxay isaga aadeen safaro 8 dumarka ahayd buu qabsaday oo cadaan buu geeyey uu xirxidha markii la dumarka soo galay wuxuu yidhi annagu maanu arag saas daraadeed wuxuu uga jeeday inuu sayid maxamed daraawiishtiisa ku dhex ceebeeyo waxyaalaha cilmi nafsiga loo yaqaano ayay ahayd markaas ingiriisku wuxuu ahaa bini aadam aan lahayn wax ahad iyo wax miisaaq ah beenka sheega xaaladda dhabta ah ee dagaalka ingiriisku wuxuu odhan jiray daraawiishtu waxba iskama celin karto ilaahay lama jiro waxaa tusaale u ah nin reer deegaanka reer burcaa oo la yidhi halkan beri inta cagaar waa dhicin wax walba haddaan cagtaas soo marinanaa kadibna meeshii ayaa halaag kala kulmay gabaygiisu waa gabay caan oo qaajabalas ninka la yidhaahdo weeyaan oo waa ninkii maxaan ku idhahdaa lahaa gabay maanan rabin geele kan iyo rimaydiise mar haddaan rubada soodaan baa ridi doonta kufrigaa rijin doona waa use wixii hor rooree rogay gaalada ma aha buuri been bay isu sheegaan iyagii baa lalaayay buuri mar haddaan rubadayda raggaan qey reerihii nabad keenay rabbiyo waa mahaddaa buuri dowladda ingiriisku waxay yarayn jirtay duruuf awoodda daraawiishta way yarayn jirtay isagoo wuxuu iska dhigi jiray dowlad weyn oo xog weyn dowladda ingiriisku waxay ku gaban jirtay arrimaha samafallada sida carruurta danyarta iyo derbijiifta oo la gaalaysiinayo ayay odhan jirtay annagu waxaan u nimid waxyaalahaasaan u nimid dowladda ingiriisku waxay samayn jirtay cunaqabatayn hubeed oo xagga badaha ah oo sharci darro ah iyadoo bini aadmina uusan badaha xaq lahayn waxaana lagu heshiiyey ilig daldala oo talyaanigu ingiriisku ka lagu dhameeyey in badaha ganacsigooda la fasaxo saas daraaddeed dowladda ingiriisku waxay dowlad bilaa cahdi oo bilaa miisaaq dowladda ingiriisku waxay isticmaali jirtay calooshooda shaqaystayaal qoomiyadaha ay gumaysato ayay maxaan ku rahaa soo kaxaysan jirtay si ay u yarayso khasaaraha ninka cad
taasuna waxay ahayd arrimaha maxaan ku ihahdaa macruufka ku ah dowladda ingiriisku. dowladda ingiriisku waxay isticmaashay dilal qarsoon iyo hubab kiimika ah bilowgii dagaalka waxyaalaha biological warka loo yaqaano. waxaa dhacday wiil sayid maxamed dhalay oo talyaaniga mari wada hadal kula jiray xamar inuu soo noqday saacado yar kadibna uu dhintay. wadaadku ugu dayma lahaa inay jiraan waxyaalo dhira iyo waxyaala kiimikal oo dadka lagu dilo. warqadii dambe uu kaga cawday wuxuu yidhi wax xanuuna waan ku ogaa wiilkayga ma jirin, waxaan u malanayaa adinku inaad mas-uul ka ahaydeen dilkiisa. sidaas daraaddeed waxa uu caddeeyey ninka qoraaga laftigiisa ee loo yaqaano richard ninka loo yaqaano qoraaga ingiriiska ee Douglas Jordan inuu markii dambe wadaadku uusan furi jirin waraaqaha ee uu haystay nin kaatiba oo carab ah oo ka furi jiray Soomaalidu oran jiray warqadan iga fura. taas waxay macnaheedu ahayd inuu daymo u lahaa in warqadan wax loo soo raacinayo oo waayaarna u lahaa. dagaalka ingiriisku wuxuu isticmaalayay waqti dheeraynta dagaalka. wuxuu u arkayay in waqtigu saalixiisa dowladda ingiriisku yahay noqon doono hadday Jarmalka ka adkaadaan. arrinka noocaasa waxaa hindisay mar kale ninka caanka ahaa ee dowladda ingiriiska qolada yuhuudda ka soo jeeday ee Winston Churchill la odhan jiray. waa ninka halkaa ku sawiran isaga ah oo ninkaas qoriga wata waa ninka magaca NATO aasaasay. wuxuu wax ku dooday inaan laga bixin dhulka. dowladda ingiriisku waxay tiri meeshii macdan ma taalo, meeshii beere ma yaalin, waay dadkan ugu dhimanayaa meesha. kadibna dowladda ingiriisku way codaysay, dadweynaha kiristaanka u badan way codeeyeen. waxaa lagu heshay in laga baxo dhammaan unanimous la isku raacay. habeenkii bay qolada sahayuuniyadda caalamiga ay heshir gashay. waxay yidhahdeen inagu ma rabno haddeer xeebaha badweynta hindiya iyo badweynta cas in nin wadaado dadka ka adkaado islaami soo baxo. arrintaas caraaqil bay naga keeni doontaa Holylandka iyo Baytulmaqdis aan qabsan doono. shir hoosay galeen. ninkan Winston Churchill bay soo direen waxay yidhahdeen waxaad yeeshaa dowladda ingiriisku way codaysay waxay tiri ninka wadaadka dhulkiisa ha looga baxo si aynan dowladda ingiriiskana u khilaafin heshiisku maxaan ku raacay dhulkan uga bixin. waxaad samaynaysaa dhammaan waxaad amartaa ciidamada dowladda ingiriisku inay ka soo baxaan dhammaan dhulka ilaa magaalada Berbera maxaan Berberana silig lagu xeero. marka silig lagu xeero intaa kale aan isku difaacno oo markii aan Jarmalka kala quusanno goor kasta ha noqotee wadaadka aynu aadno nafsa shay sidii baa dhacay. dagaalkaas bintiyaas anigu cidna ka badmaayo ilaahay maahane wuxuu ahaa dagaal qoomiyadda yuhuuddu ay kula dagaalamaysay dadka dalkan jooga. waqti dheerayn ayuu dowladda ingiriisku ku sameynaysay dagaalka. guntii iyo gabagabadii waxyaalo yaryar ayaan ugu sheegayaa dadka Soomaalida. ujeeddada aan ku soo gabagabaynaya warbixintan kooban waa laba qodob. mid aan u jeedinayo Soomaali weynta oo dhan, dadka aan taariikhda, iyo mid aan u jeedinayo dadka dhulkan jooga. Soomaali weynta waxaan leeyahay haddaad garan laadiin qiimaha taariikheed ee xarbiga daraawiishta ee British Empire-ka lagaga hor yimid kii ugu dheeraa ee 20 iyo dhowr sanadood socday. waxaan leeyahay hadda deris idin lama aha guryo nin saan cadaala ah. ummadda Soomaaliyeed dad cadaan ah maanta guryahooda deris lama aha. saan cadaalo waa gaalahay ay la tahay. beerana dhulkiina kama fashaan. day Soomaalidu joogto Berbera iyo hadday Hargeysa joogto iyo hadday Kismaayo joogto iyo hadday Boosaaso joogto dad cadaan ah maanta naafi kama qaataan dhulka Soomaalida. wax badaha iyo waxa dafoodada lagu sheegay maahaane. kumana Afrika inteeda badan boqolkiiba 90 Afrika hadda dhul beeroodkooda dad cadaan ah haysta iyaguna dirma ku dhex gaabsado waqtiga dhul xor leeyahay. waxa noocaasi kumaysan iman wax aan ahayn dhibaato iyo dhiig iyo halgan iyo tacab iyo dhidid iyo mashaakil iyo xanuun dowladda ingiriiska lagu dhadhansiiyey iyo isbahaysatadiisiiba dhulka kan. dadka gobolada Cayn iyo Nugaal ku dhaqan waxaan leeyahay sida dhulkiina iyo diintiina loogu duulaan ah 100 sano ka hor baa wali duulaan la idinku yahay. xoguhu waxay sheegayaan in qoomiyadda reer Banu Israa'iil aaminsan tahay in dhulka kan oo la yiraahdo Cayn Valley iyo Nugaal Valley raad ku soo arooray qoomiyadii yuhuudda inay degan yihiin. waxaa markhaati u ah xayawaanka loo yaqaano dameer farowga ama Soomaali aas oo ay aaminsan yihiin inuu yahay daabatu Muusa. nabi Muusa calayhi salaam dameerku fuuli jiray. hadduu ahaan lahaa nabi Muusa annaga nagama xigaan kuwan samaanta ilaahay ka go'ay. waxa weeye iyagu saas ay aaminsan yihiin. waxaa ka mid ah geedka malmalka loo yaqaano. geedkaas wuxuu galay Maryam calayhi salaam markay umushay nabi Ciise calayhi salaam.
بايبل waxaa ku qoran laba geed baa loo keenay mid wuxuu ahaa geed yar udgoon midna wuxuu ahaa geed yar qarmuun oo xoogaa urta iskaga bilisay geedkaas udgoon waxay ku sheegaan inuu ahaa geedka malmalka geedka maxaan ku yiraahdaa yar qarmuuna waxay ku sheegaan geedka loo yaqaano qaroonta ayaa lagu sheegaa guud ahaan markii ingiriisku waxyaalaha noocaas isticmaalayay sayid maxamed allah u naxariistee waxa uu ahaa shakhsi aqoon badan u leh wuxuu iska difaacay dhammaan mucaamaraadkaas saacadii ugu dambaysana wuxuu si cadaawad iyo badan u qaba oo kaliya qabadkiisa doonaya si fudud ayuu kaga fuqday arrimahaas waxay ka mid ahaayeen arrimihii aan rabay inaan kusoo gabagabeeyo guud ahaan sayid maxamed wuxuu hadlay sayid maxamed cabdullahi xasan ali raxmahu wuxuu ahaa iyo raggii daraawiishta ahaa dad naftooda iyo maalkooda iyo diintooda ilaahay dartiis siistay subxaanahu watacaala taasna waa laga aqsan karayaa waxyaalaha la yaab kala ku xusto wadaadkaas iyo raggii la daraawiishta la socday waxaa ka mid ahaa inuu ahaa nin awliye ah oo adduunka ka dambeeya xataa la tusay mid yaroo bas sidaan ii sheegaya gabay buu sayid maxamed kaga hadlay in nugaal dadka ka dambeeya intay ladnaadaan haddana aanay diinta sida islaamka ugu dhaqmi doono si fiican mar labaad horena ay diin la-aan wax badan u jirto oo dhibaata usoo gaadhay hase yeeshee markay diinta u jihaadayeen uu ku faraxsanaa inuu jihaadaan laakiin mar dambe oon waxba jihaadana ilaahay diintiisa wax badan ay khaldami doonaan markaana ciqaab rabbaani ima doonto wuxuu sii saadaaliyay abaartii dabadheer buu sii saadaaliyay taas waxay ku tusaysaa in waxa ka dambeeya ilaahay subxaana wa tacala tusay wuxuu gabay ku yidhi ragga diinta caasiyahayow doodaan ku idhaaho mar unbay dabayl iyo kici duluf abaareed markaasaa nugaal iyo dalyaro deeq la soo bidi markaasaa digirka laga xadray damaqa caymeed markaasay dayuurooda daldali deexda webigeen markaasaa irsigii daar ku jiray daasado u dhigan taas intaasaan kusoo gabagabinayaa wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan u mahadcelinayaa ilaahay subxaana watacaala kadibna waxaa farxad weyn inoo ah dhammaanteenba inaynu xusayno 120 sano kadib kacaankii daraawiishta oo ahaa runtii kacaan aan xaq u lahayn oo xaqodirir ah oo diidanaa in nini intuu inoogu yimaada dhulkeenna inuu gumaysto oo ina maamusho oo wuxuu doona inaga fushado in arrintaas aynu haddaynu Soomaali nahay aynu ku faano qoranno wax ka barano ay tahay dhacdo in la inoo xumeeyo gumaystuhu inoo xumeeyo aynan yeelin ubadkeenana aynu gaarsiino taariikh ahaan u gaarsiino oo ay noqoto wax laga wada dheregsan yahay hadii goor taariikhaha dadka waana lagu dilaa bulshooyinka waxa weeye waa lagu waxyeeleeyaa bulshooyinkana way kabtaa hadday taariikhdooda bartaan sida awgeed waxaan leedahay taariikhdu macno weyn bay noo leedahay taariikhdu waa wixii tagay ama waa tagtadii ummad ay lahayd qofka jooga ee hogaamiyaha waxay u tahay toosh ama iftiin uu ku qoraansanayo waayaha soo socda waqtiyada soo socda una waxa weeye si fiican u adeegsan karo waqtiga uu joogo sida daradeed taariikhdu macno badan bay noo leedahay taariikhda marka laba habba bulshooyinku la tacaamulaan mu'arriqiintu la tacaamulaan mid waa warin in la wariyo waxaa ku caanbaxay aw jaamac Umar Ciise ilaa khayr hasiye aw jaamac waxa weeye juhdi badan uu geliyay inuu taariikhda document gareeyo oo ilaaliyo oo buug inoo qoro oo waxa weeye xitaa uu aad iyo aad waqti dheer ugu bixiyay oo aad arkaysid inuu oday kasta goobtiisii ugu tagay ولو العكتيسنا أو استعمال شيء عدكو وحوي تغيير سنة شيء أو جماعة مركز دمانته وحين نقول زي هاي نكمل مؤرخة تاريخيا هكا إن البوس كله يهدقنا البوس كله يهدقنا أو يرالنا أيوة نقول زي إنت سواين سيدي أي شيئين أقول يهند الجهري حلقة بعدين حلقة كاس تراويش كهجابين السيد تراويش واحد كعان صوماليات ما هاي غير هذا الله ربطه إن أنت على جروا قصده وامين Soomaalida waxay ku maxmaadaa in hulaab xun inuu wax qarsanayo ayaa la moodaa haddii aad tirahdaan dhulbahanta ahayd oo waxa weeye wax waasic ah oo ballaaran oo umad Soomaaliyeed oo dhan deeqi lahayd ayaad soo koobaysaa waana xigsasho aan gar ahayn wixii guul ah ee wanaaga ee dhacay ee ummadda Soomaaliyeed ay sameeyeen
waxa weeye hawa loo kala batay cid un baa qaban lahayd haddaynu nagu qabanno deegaankeena ka dhacday macnaheedu maaha inaad dadka ka xigtid arrintaas waa muhiim waxayna ka mid tahay waxyaalaha hoos u dhigay maqaamka taariikhdan xoogga leh ee qiimaha leh ujeedku wuxuu ahaa inay ummadda Soomaaliyeed ka dulqaadaan gumaystaha ujeedkaasi marka gumaysta la kicinayo wuxuu u baahan yahay muruq wuxuu kale u baahan yahay in maskaxda dadka loo koriyo in gumaystuhu uu ka daadago maskaxda iyo maanka dhalinta iyo dadka soo koraysa uu ku guuldaraysta waxayna ka mid ahayd dhaqdhaqaaqii iyo hanuunintii daraawiishta iyo culimadii kale ee Soomaaliyeed ee qabteen Sheekh Bashiir iyo rag far badan oo kale ayaa jiray oo arrintan ka qayb qaatay marka macnaha way u fashilmay dhaqdhaqaaqi ahayd inuu fikir ahaan uga daadajiyo Ingiriisku uga dhaadhiciyo ummadda Soomaaliyeed waxaa la sheegaa muwaarikiintu ay sheegeen in markii dambe Ingiriisku uu garwaaqsaday inuusan dhulka fog ee badaha ka fog uusan soo gaari karin sidaa daraadeed wuxuu ku eekaystay dhulka dhulxeebeedka ah wuu ka quustay inuu dhulka yimaado ilaa xilli dambe weeyaan waxaad la socotaan xilliga waxaa socday dagaalkii koowaad adduunka aad buuna u mashquulsanay dowladda Ingiriisku way awoodi weyday in waxa weeye ay dhulkan soo gaadho tamar badan way weyday waxaa dhacday xilliyadaas in gumaystuhu meesha doonaha la Afrika waxaa jiray kacbo ka socday Liibiya oo waday odayga la dhihi jiray Umar al-Mukhtar waxaa jiray kacboonkii mahdiga Suudaan waxaa jiray kacboonkii waxaa markaa u soo baxday dowladda Ingiriiska iyo dowladda gumaysanayay inaan muruq waxba lagu gumaysan karin waa ta keentay markaa ay soo dadejisay in xorriyad la siiyo weliba waxay u eekeen xorriyadaasi xorriyad ah inuu muuqiisii inaga tegay laakiin fikirkiisu uu inala joogay waxay samaysteen rag la fikir ah oo ilaa iyo waqti dhaweyd ilaa iyo maanta weli waxa weeye ina maamulaya oo waana ta keentay maanta inay fikir ahaan ina haystaan laakiin muuqaal ahaan waxyaalihii keenay inay inaga guuro gumaystuhu Afrikana ka guuro caalamka islaamkana ka guuro waxaa ka mid ahayd irbaaxadii kulleyd iyo xarakaadkii ama dhaqdhaqaaqyadii la dagaalanka ee jihaadiga ahaa ayaa sabab u ahaa waxaan ku soo gabagabeynayaa halgankaasi midhihiisii wuu keenay barakadiisiina waxaa laga yaabaa in loo aayo oo ilaahay hortii bay u jihaadayeen 12 sano waxaa muhiimka waxay tahay inaynan ilaa aan laynoo fool xumaynin taariikhdeena oo laynoo caayin arrintaas arrin muhiim ah waxaan kaloo ku darsanayaa dadka rumuusta ahaa ee magacooda hogaamiyaasha ahaa iyo dhacdooyinka iyo dagaalada hadda goor waxaa la sameeyay u lumin in loogu magac daro goobaha jaamacadaha fasalada waxaan soo jeedin lahaa bitaxdiid oo si gaar ah soo jeedin lahaa aw jaamac Umar Ciise in uu noqdo goobaheena waxbarashada iskuuladeena ama jaamacadaheena inaynu uga sameeyno magac maamuuseed uga sameeyno si sabab waxaan kala soo jeedin lahaa in la helo mataaxif lagu kaydiyo qalab taariikheedkii waxaa laga yaabaa in ay guryaha yaalliin awiyaashiin qoryihii ay lahaayeen ustaradii iyo wixii la yaalliin baa laga yaabaa waxaa laga yaabaa in qalcadihii oo dumaya ay jiraan in la ilaaliyo waxaan xitaa waxay leeyihiin qiimo taariikheedna way leeyihiin qiimo waxaa la yaabaa keer dalxiisna way leeyihiin inay marka ay wixii habayno waliba aqoonyahanka iyo dhalinyaradu ay waxa weeye xil iska saaraan oo il gaar ah oo reer magaalnimo iyo xadaarad leh lagu eego taariikhdan ay u baahan tahay waa ku dheereeyay waqtigana waa leeyihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bay uga baxay sidaas darteed xilliyada uu sayidku gabayo kol waxaad arkaysaa isagoo tol Soomaaliyeed si wanaagsan u soo dhaweeyay kol isagoo canaanaya kol isagoo qaar maagaya marka gabaygan way ku jirtaa waxaan uga jeedaa marka xilligiisii wuu qaatay dadkaasina waxa iyo waxay isku qabeenba iyaguna xilligooda way qaateen dhammaantood Allah u naxariisto inta hadda nool ee dhageysanaysa u dhawooda ku dhacaya inaysan u qaadan dadka nool hadda baa la sheegaya waa dhacdo iyo waqti iyo qofba meeqaamku meeshaas ku lahaa saas un baan uga dan leeyahay gabaygeena ku jiraan talo Soomaaliyeed laakiin waa dhacdo iyo hadba marxaladii meesha ay joogtay oo in badan oo Soomaalida kamid ay ka dharagsan tahay gayga Soomaaliyeed gabaygii baan halkeen uga soo jeedinayaa
wixii hadal waa la yidhi awal maan sawataan gudbo guriyay waayaaye wataan galbeedka u diray guga hortiisiiye angasheeyo kii xalay hurdada gamaa'idiidi gallada ilaahay ka badan geedaha baxaye gushooyinoo yeelay baan idin garwaaqsiine gudiyey imaqaal waxaa tihiin gacaalahaygiiye najiskii gurta xumaa hadduu shalay tageeryoodey godka lagu cadaabkii haddaan gowrac ugu jiday uguduuli cunay waa waxay galaabsanaayeen durwaagii ka gigaan u diri gacan salaameede isagay gargaaro dugaagiga gooniyahe haddaan garan gunansiin lahaa goriyo ayaane gandaldheere waatan wax badan guyadu madhaye gafaduu ku sii daray xaqii lagu gufaynayey anigu wow garaad qabay inuu gigi waraabuy giririixisaan jirin waa wixii gaabshayoo rogeeye galayska waataan la dhacay gucuuradoodiiye haddii ay garaabaan sidaa uma gandoodeen godolkiyo kasnaantaan u qabay kama galgaleene kuma gaagaxeen abid hadday nabad ku gohaane waxse mawdku gaardiyey markay ganaafka taageene gabowgii shucle ahaa haddaan gowsihii jebiyey gegida yuusuf jifu kufrigu tukuhu gamaas dhabayaye gesaaska duumarkaa sidii galow la moodaaye gedjoogoodii haddaan gudurigiisiiyey gudka taajir bay hadhuun ugu gamumaaye cismaaniyo waxaan gaadayaa gabaanadiisii majarteenka kale inaan ku gudo wayga gaaranuge garaacyada bahdiiraha tana guta loo waceeye walagu galaal xoorayaa guriga reer nuure gabagaba rogaalka warmaha lagu ganayaaye gobay kuwade la-aan sidii goosan weer helaye gafowraxun sidii eebbahay guldaragu raashe fartaagadi aan bartiyo gololodaydidhe garbadaan ka soo rogi jiriyo gogol naqaygidhe madfacgow yidhaahdiyo rasaas giniinigteedidhe gulaama roogdaahay iyo gabaabaxdiisidhe onkood guguguclayn iyo hilaac galaalacdiisidhe gufaaciyo gudguuda soo curtiyo garaamahoodidhe gulaama maayay la isku daray galaangalkoodidhe galxareed haddaan soo gabraday galiyo duufaandhe badgariirtay mawjada gurxamay gacaamadii ayldhe shirlagooyay waayeel gabyidhi garaangartiisidhe xariir lagu gimaamadayihiyo gole firaasheeddhe xajada ninkii garaanayiyo gigiyo sheegeedhe
gobo kalena waa aniga iyo gadiiska sheegayga galilyoodayay cadhow miyay gubaatay laabtaydu gogoshi la ii dhigay miyaan gaydhla qaaban waaye gabaldhiciyo waa beri miyaan socod ku gadhnaaday gadid maalin oo idil miyaan gaafka saara meeray sidii aw gabraareed miyaan guludub loo roorey magudoodigii suuliga gubaadka yeelay magadaaba dhaabadkaa sidii gari i boodheeyey wixii ay ururay miyaan gibil maduubaade ragiigu gadana miyaa aakhira oo guureey gortaan garwaaqsaday miyaan gocooshadii eedeey gaminkan xanuunsaday miyaan goro dalaalaadisheey galiin haddii aan foorarey miyaan giirka koor u qaaday guhaadiyo calool xumo miyaan gayrtay oo diriirey hadba gees miyaan dayay intaan gownaxyaada buurey guntigaan maroorsaday miyaan labaada lowgeeyey gashaanka iyo tiirigiyo gamaas miyaan qaatay magad baan u taagnahay intaan gaadha noloshaydu warmadhoodibaagaa murayo garaab ku weynaadeey magalaasya midaan ku shubay gamaashigii dayrtaa gorgoor kacay lamodyow durduro maygu gooraabey godobtaydu way wadaa jirtaa gooyahoo idile gashiinimaan ku leeyahayna waan dabagalayaaye waxaan goosan karo anigu waan gurubsanayaaye gardaradiyo maagii helay waan ka gaylamiye gartay weeye dunidaba inaan galaalaflayaaye gaygaba waxaan doonayaa inaan gumeeyaaye ninkanaanan ayaan ahaan gabaana dhaafayne waxaan gaysta oo idili waa guniyo rayrayne wixii guul daraystaba naflahu gagaabayaaye anigaba gadilaygu falay waa gagaab culuse galaad nimaanka qabo laguma ogaa gebiga daroode gidigoodba watay girdhiga igu garaaceene anagafahaygii nadhaye gaystay naabarkiye annaa waxaan rasaasta uu gingimay gini colaadeede gabagabaha bari waxaa ku xigay goohaydoore gubaaniyo burciyo loogo waa gaalib weerarahe godiga aroora fardaha lagu garmaamayne garoodi iyo waa la tegi burihii goleyse galayuubta hagaraadan baan gaadadu marine gambi wawgu ridii fulayadii ganaafka dheeraaye goltoosiyaha waa la siin gucuuradoodeye sidii garow hadhuur baan kurkiis guraan ogaadeene garmaamaha haddii aanan dayn goor walbaba jooga inshaa allahu way gurahayaan sidaa galmeereede guraasiyo iljeex waa la qaban gooshkan haatanahe malahayga waa lagu galgalan gaanka reer dalaale gasbaa ku caaran reer subeel goboora weydiye kolan gooba coobaley ka dayo amaase geelo koor huwan waan ka gaaban gaabsadaye geliin ma waayeene haruun xagge baa lo geyn go'aamiyuu dhaafe afartaa gudbaye balaan mid kale soo gadaal celiyo
sidii goray garaar sare ka baxay garaabka maantaago waxa guudka iga fuushan iyo galayax maanuujo gabgabtiyo galayaytu waa godol hortiisiiye ninkii gooman waa u shubahayaa galaaxa caanoode gabbaan laguma soreenin raga balaanka muusiyo wangaaxsanaan jiray tan iyo garaashadaydiiye sidii goodi dhaalay haatanaan gaawaleeyahaye angafleeyo garaashahaas gafan baan ahaaye xajadaa ninkunaan ahaye anuu garaadeeyo markab aashigaadii sidii balaan u guureeyo meeshuu gararkeedu jiro gawankaaga siiyo nimaankadaa yarayn baan ahay oo gaadawayn jiraye way garaadlii dantay inaan ka gaftaaye goboo kalana waa eebbahay midaan galiimayste ebowgayiga oo dhan waa nalaga guulaaye waa noo ganteeyeen dadkii gaalada ahaaye ebowgiri kolay ku tahay nalagamuuneeye konaa lagama qaadine dulmaynagu galayaane gabaad kale haddaynu helaan waa gamiilahayne ebo waxay nagu galeen dinta soo galaaye ebow sidii guun haweenkiidu waaniye ebow nin goobabaan ahoy guni rifaysaaye ebow waxaanoo gurmaday gaya alifley ebow waxaanoo gurmaday gaya alifley magaraysni ebow waxaa guufanayska ahe ebow gaboodii doraad waan ka gaaralayne ebow markaan gaylamay gulmiyo biqiye ebow guddoonkii sharciga goye nimankeeye ebow kufriga gadaaftaley gacanta haystaane ebow anaa kaga gar lehe gushaha iseeji kaga garlehe guusha hayseeji gabaygaas wuxuu ahaa gabaygii gudban gaalalagan oo anow daahir waxaan odhan karnaa allahu naxariistay ow daahir maqashaheena kaba dhacaha cabdirasaaq maxamed suulle oo gabaygaasi dhegaheenna si fiican ugu duxeeyey wixii durhaxaan ahaana waa laga sii saaray halkaas waxaa noogu eeg barnaamijkeenii dokumentariga ahaa markana waxaan u geli doonaa barnaamij kale oo kan dhinac socda kan taariikhda iyo dokumentariga ah iyo fiidiyooyada ama muuqaalada markan waxaan u yeedhi doonaa caaqil ama suldaan axmed maxamuud maxamed sanyare soo dhowo caaqil dhammaan inta ka soo qayb gashay xafladda sharafta leh ee taariikhda aasaaskii dhaqdhaqaaqii gobonnimadoonkii halgankii daraawiisheed intii soo qabanqaabisay iyo inta ka soo qayb gashay waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan mar labaad u hambalyeynayaa ururka halkan magacan ku qoran ee dhambaal oo kolley aniga ay day muuqatay inuu isagu lahaa abaabulka ugu weyn iyo doctor cumar gabayadii uu isugu leyloo tiriyeyna dee kolley wax kasta oo taga cid baa beddesha waxa weeye ilaahay ha u naxariistay aw daahir afqarshe iyo aw jaamac cumar ciise ragga ay ka mid ahaayeen dhaxalkoodii waa kaaynu hayno wayna muuqataa ififaalihii iyadoo oo halgankii daraawiisheed ama daraawiish uu ahaa iftiin u kacay geeska afrika gaar ahaanna taariikhda keliya ee ugu ballaadhan ee ay soomaali leedahay haddana innagu waxaynu nahay buddige waxaan leeyahay in laga helo gobolkeenna magaalo madaxda gobolladan SC maxad maktab baan leeyahay
lagu kaydiyo buugaagtiisii ardada gabayadii in la baro oo loogu subo moobilada cajaladaha wixii ay taageero u baahan yihiin dadka hawsha abaabulayna laysu wada taago waayo intaa goobood ee la tirinayay ee halkankii daraawiisheed ka dhacay wax in yar mooyaane waxay ka dhaceen waa deegaamadeena weli way yaalin lafihii way yaalin ilaa hadda yaalin taariikhuna waa wax soo jireena waxay Soomaali wada leedahay oo weliba waqooyi ka dhashay halgankii taariikhdii Sayid Maxamed Cabdilla Xasan ee daraawiisheed ee Ingiriis dalka laga xoreeyay taariikhda labaad ee ka dhalatay waxay ahayd xornimadii Soomaaliya 1960 markii laga taagay caalam Soomaaliyeed oo ugu horeeyay Hargeysa labada taariikhood SYL ururkii la oran jiray oo xamar ka dhashay ama koonfur ka dhashay waxa aynu waqooyi ahaan ama Soomaali ahaanba wada leenahay waa saddexda taariikhood Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar xafladaan joogna waa tii gaalada lagula jahaaday caawana waxaynu xusaynaa tii aasaaskii bilowgii xornimadii daraawiisheed baynu xusaynaa waxaan ku soo ururinayaa ninbaa wuxuu daraawiishay keefkoogay keefku waa ka qoriga laga rido keefku waa ka qoriga laga rido waxa weeye waxaa inaynu hayno oo taariikh ka badan hayno intii aanu weynaha ogaato intii aanu weynaha ogaato kuwo kale soo bandhigaynaa waa dehadda la baasugaya inaynu u dhigno oo dadka ka qaadhicino inay daraawiishtu ay ahaayeen horta taariikhtii Soomaaliya cid walibana ay ka qayb qaadatay inagu saldhigaanu ahaano laakiin ay ahayd maxaan ku yidhahdaa taariikh Soomaaliyeed ay ahayd inagu aynan xigsan taariikhdan Sayid Maxamed Cabdilla Xasan awalan isaga iyo dadka ku jira taariikhda ama sooyaalka Soomaaliyeed ee faraha badan leh ilaahay waxaan u weydiinaynaa inuu ilaahay u dambi dhaafo ayaan awalan u weydiinaynaa runtii hadalkii waa la qaatay hadduu taariikh ahaa iyo hadduu tilmaan iyo tusaale ahaaba runtii aqoon-yahan fara badan baa runtii fadhiya runtii annaga waxaan ku soo ururinayaa mahadnaq iyo inaad sii wadaan oo aydan daynin oo runtii lagu dhigo iskuullada inkastoo in badan oo ka mid ah taariikhda Sayid Maxamed Cabdilla Xasan ama daraawiishta lagu dhigo haddana la sii kordhiyo maxaa yeelay waxyaalo fara badan oo taariikh lagu tilmaamayo oo ka liita ayaa lagu dhigaa oo wada koodbuur iyo foodbuur miidhana marka waxaan ku soo ururinayaa runtii taariikhda ha lagu daro dugsiyada hoose dhexe dugsiyada sare ha la baro jiilalka soo koraya runtiina waxaan leenahay hadaalina ilaahayna idinka dhexgalo wajazaakumullahu khayran asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu boorada sanadka kan xuskii aasaaskii dhaqdhaqaaqii daraawiishta bal waxyaalaha lagu soo bandhigay aynu eegno booradani ka turjumayso aasaaskii halka kani waa dagaalkii Daratoole dowladda Ingiriisku saraakiisha meydkooda ka soo carartay wuxuu ahaa jab kii ugu xumaa ee gaadhay halkan ninkan sarkaalka ay meydkiisi waa laga cararay dhurwaayaa cunay sarkaalkii ciidanka watay wuxuu 26 June 26 June oo maaha maalinta xorriyadda gobolada waqooyi dowladda Ingiriisku 26 June uguma aysan dooran wax ujeedda la'aan ee waxay ahayd guul daraawiishtu gaadho tii ugu weynayd bay ahayd marka waxay Ingiriisku doortay in maalintii ay ugu guul badnaayeen inay noqoto maalinta xorriyaddooda Soomaalida oo wuxuu ahaa magaalada Buuhoodley nabadgelyo ku helan oo markuu ugu horreysay ciidankoodii jabay uu ku nastay markay gaadheen Buuhoodley 26 June 1903 dagaalkii cagaar weynayaasha ee Daratoole ka dhacay qayb ka mid ah buu ahaa kaas waxay marqaatu ahayd dowladda Ingiriisku waxay jab u aragtay inay meydkeeda ka soo cararto nimankaas saraakiisha Daratoole ku dhintayna cid aasatay dhurwaayaa cunay taariikhdu taas waa midii ku saabsanayd sababta xorriyadda loogu doontay 26 June ninkaas odayga ah oo adduunyadu taqaano
oo la yidhahdo Arthur Balfour sahayuuniyadda caalamka ninkii 1917 ka dhawaaqay wacdul Balfour wuxuu ahaa ninka amray in dhammaan dhulka aan heshiiska lagu ahayn la weeraro oo dhammaan nugaal iyo cayn la weeraro sayid maxamedna la soo qabto taasuna waxay markaa ahayd dagaalka qoomiyada gaar inay wateen waa Winston Churchill waa la yaqaanaa labada magacaas yar daba marsan Winston Churchill wuxuu ahaa ninkii diiday in laga baxo Soomaaliya si nabadgelyo ah ha loo kaadiyo heshiiska arrintaasuna waxay isaga iyo koox gaar ah dawladda Ingiriiska shaqo badan ba kuma lahayn ilaa intaan Ingiriiska German kala baxno si markaa aynu ugu xoog sheegno Churchill wuxuu mutaahim ku ahaa in dagaalka uu uga jeeday arrimo diimeed iyo inuu arrimo batrool ba uga jeeday sanadkiisa waayo shirkadaha batroolka qayb ka ahaa admiralka ciidamada badaha u ahaa 1920 waxay ahayd maruu ku doodi jiray Afrika dhulalka khayraadka leh ee muqaawamooyinku ka jiraan in la baabiyo tan waxa ila tahay waa qalcadii waa la garanayaa waa tareex tan waa daraawiishta oo safan dhulka kani waa dhulkii guud ahaan daraawiishta ay ka talin jirtay ee imaaradda daraawiishta la oran jiray ilaa dhulka galadiga koonfurta Soomaaliya galadiga dhulkaas intaas oo dhan waa dhulalka iyagu saameynta ku lahaayeen ciidamadoodu joogeen ficlan kan waa iska duulaan daraawish sameynayso kan waa musawir karakter laga qaaday kan waa isaguna karakter daraawiishta laga qaaday kan waa taaladii kaliya waxa muhiim ah dagaalka daraawiishta labada zaciim kuwan waa urka dhambaal khariirada waa ka hadlay waa dhulkii guud ahaan daraawiishtu ka talin jirtay labada sarkaal oo adduunka laga yaqaano bay ahaayeen ujeedada sanadkan ku cusub inaynu faano in ahaa dagaalkaas ninka amray Arthur Balfour iyo Winston Churchill labadaasna waa niman siyaasiyiin oo la yaqaano cid ay yihiin iyo wax u jeedeen wabillaah qodobka labadan tilmaamaya waxa weeye ma oranayno darwiishkii iyo daraawiishtu waxay ahaayeen dad macsuumiin oo wax khalad ka dhicin dad halgamayay bay ahaayeen niyad wanaagsan isdoonayay inay iska kiciyaan gumaysigaas diintooda iyo dalkoodana aan lagu sandulayn khaladaadna waa ka dhici karaa taariikhdii baa sii nool wax badan baynu ka haynaa laakiin jiilalka dambe waxa laga yaabaa inay waxa rumaystaan marka waxaan soo jeedin lahaa inay u baahan yihiin buugaagtaasi in la taxliiliyo oo la saxo oo la dabagalo kelmad la isu taago waxyaabaha khaldan ee lagu qoray oo dhan bay u baahan yihiin insha Allah haddii ay nalo in waxa weeye waxa jirta wadamada waxa la bixiyaa shahaadooyin waxqabadka lagu bixiyo marka inay noqon doonto shahaadada darwiishnimadu mid waxa weeye la siiyo qofka la sharfayo shahaadada lagu bixiyo noqoto sida caalamka hadda magaalo waxa weeye waxa la siiyey shahaadada nabadda iyo Nobel Prize marka Nobel Prize darwiishnimada yahay إن شاء الله يأتي يعني أبونا تنتهي يا الله وآخرين يا شيخ المخلين هذا أبونا تنتهي उसका ताजिर भाई हरान ओगो गमो माए इस्मान इयो वहंगार या गवा नरेशे